kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkan xogta Shiine oo aan kusoo gudbino xogaha ugu dambeeyay iyo warbixinada xogta caalamka. Barnaamijkeenna waxaan kusoo gudbin doonaa dalka Turkiga ayaa ka mid noqday saddexda dal ee ugu sarreeya awoodaha adeegsiga diyaaradaha droniska sida Turkigu uu dhibaatada uga soo maray iyo sida diyaaradahaas ay wax uga bedeleen awoodda dalka Turkiga iyo macluumaad kale oo dheeri ayaan idin soo gudbin doonaa. kadib dagaalkii labaad ee dunida waxaa la helay diyaaradaha droniska waxayna ku fideen in dadka lagu dilo meelo aad uga fog dunida. Mareykanka ayaa dalka ugu horeeyay ee drones ku dila dad rayda gantaalo laga soo rido meel aad u fog masaafo ahaan. kadibna tartan dheer oo la galay waxaa jira saddex dal oo hoggaanka u haya maanta dunida diyaaradaha droniska iyo tiknoolajiyada. Turkiga ayaa la tartamaya dalalka Mareykanka iyo waliba dalka Britain oo ah kuwa ugu isticmaalka badan dunida dilalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida lagu sheegay dib u eegis ay samaysay kooxda Interception ee weerarka droniska adduunka ka faalooda. wadamada kale ee la sheegay inay diyaaradaha droniska ay ku dilaan dadka rayidka ah waxaa ka mid ah Israa'iil, Ciraaq, Iiraan. Tiknoolajiyada Turkiga ay adeegsanaysay ayaa inay kaga hortagtay oo ku guuleysatay kooxda ISIS gudaha dalka Syria xadka dalka Turkiga ay la wadaagto dalka Ciraaq iyo waliba dhanka Iiraan halkaas oo ay joogaan kumanaan ka mid ah diyaaradaha droniska ee dalka Turkiga maalin kasta. kacdoonkii 10 sano jirsaday ee ka soo horjeeday xisbiga shaqaalaha ee Kurdiyiinta ayay u adeegsadeen ciidamada dalka Turkiga droniska. inkasta oo Mareykanku uu ahaa kaaliyaha ugu horeeyay hubka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn dunida ee loo yaqaan UAVs adduunka inta badan 10 sanadood ugu dambeeyay isagoo bilaabay weerarkiisii ugu horeeyay Mareykanku diyaaradaha aan duuliyaha lahayn 2001 maanta in ka badan wadamada tobaneeye ah ayaa haysta tiknoolajiyada isticmaalka diyaaradaha droniska sida dalalka boqortooyada Ingiriiska, Israa'iil, Pakistan, Saudi Arabia, Imaaraadka Carabta, Masar iyo waliba Nigeria iyo Turkiga dhamaantoodna waxay adeegsadaan diyaaradaha UAVs oo hubaysan si ay u laayaan bartilmaameedyada ay doonayaan. dadaalada Washington ay ku xakameynayso faafitaanada iyadoo xayiraadaha la saaray dhoofinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay hoos u dhigtay tartankii caalamiga ah ee tiknoolajiyada. dhanka kalena Mareykanku waxa uu dejiyay tusaalaha ciqaab la'aanta ah inay tahay fulinta droniska isagoo fuliyay boqolaal weerar oo lagu dilay dad rayd ah 10 sano ee la soo dhaafay. Christian Wood oo ah suxufi muddo ka badan 30 sano ka badan adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droniska wuxuu sheegay in ay aad u dhaaftay xilligii loo baahnaa in la xakameeyo diyaaradaha droniska ee dunida. gobollo badan oo xitaa ay ku jiraan kuwa degan ayaa awood u leh inay adeegsadaan diyaaradaha droniska. dhoofinta Mareykanka ee awoodda hubka iyo diyaaradaha droniska waxaa hoos imanaya isla markaana hoos imaata Kongareeska iyo militariga. sidaas daraadeed hanaanka lagu helayo ayaa ah mid dhib badan. qaar ka mid ah iibsadayaasha wax ay door bideen inay ka iibsadaan Shiinaha drones hubaysan oo uu iibinayo ku dhawaad 10 dal oo dunida ah. diyaaradaha loo yaqaano CH-4 oo ah nooca loo yaqaan droniska awood u leh awoodda sahminta inkastoo uu ka yahay kana raqiisan yahay diyaaradaha Mareykanka. haddana xitaa haddii ay horumarayaasha waaweyn sida Mareykanka ama Shiinaha ay go'aansadaan in ay xadidaan iibinta diyaaradaha droniska ee hubaysan, dalalka hadda haysta droniska ayaa dib u horumarin kara awoodda ay haystaan. sidaasna waxaa sameeyay dalka Turkiga oo maanta kaalinta saddexaad kaga jiraysa soo galitaanka 10 sano gudahood awoodaha isticmaalka droniska. Turkiga waxa uu taagan yahay kaliya maahan midda ugu horumarsan dhanka horumarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, laakiin sidoo kale waa dalka kaliya oo sida joogtada ah u isticmaala diyaaradaha ugu badan ee droniska dunida. sanadkii 2005 Bayraktar oo ahaa nin dhalinyaro ayay ku qanciyay koox yar oo ka mid ah saraakiisha Turkiga inay ka soo qayb galaan bandhig yar oo uu ku soo bandhigay tiknoolajiyadiisa. 26 sano jirkani waxa uu wax ku soo bartay injineerka korontada jaamacadda ugu sareysa dalka Turkiga waxaanu shahaadada masterka xilligaas ka qaaday jaamacad ku taala dalka Turkiga. laakiin waxa uu ka walwalsanaa waxa uu sameyn doono markii waxbarashadiisa uu dhameysto waxaana la gaaray waqtigii uu noqon lahaa ee uu dib ugu laaban lahaa. wiilkani 26 jirka ah maanta waxa uu guusha u horseeday dalka Turkiga waxaana uu yiri xilligaas uu waxbarashada soo dhameystay haddii Turkigu ay taageerto mashruucan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn 5 sano gudahooda Turkiga waxa uu safka ugu horeeyay kaga jiri doonaa awoodaha isticmaala diyaaradaha droniska. sanadkii 2007 Bayraktar waxa uu ka baxay waxbarashadiisa PhD-da wuxuuna ku soo noqday shaqo gaar ah diyaaradaha droniska in uu ku sameeyo dalka Turkiga gurigiisa. xilligaas
Turkiga waxaa Mareykanka uu ka joojiyay tiknoolajiyada mashiinada droniska sidoo kalena Israa'iil ayaa xiriirkooda sii xumaanayay waxaana labada dal ay aaminsanayeen in Turkiga aysan fursad kale u heli doonin wax soo saarka adeegga tiknoolajiyada droniska laga soo bilaabo sanadkii 1975 markii Mareykanku ugu soo rogay cunaqabataynta hubka dhoofinta kadib duulaankii Turkiga ee Qubrus. Turkiga waxa uu xiriir wanaagsan la lahaa Washington waxaana doonayay inuu horumariyo warshadihiisa difaaca. Sanadkii 2006 Turkiga waxa uu ka codsaday Israa'iil 10 diyaaradood oo drones waxayna qaadatay muddo 5 sano ah Israa'iil in ay u soo dirto diyaaradaha droneska dalka Turkiga. Ankara ayaa markaa kadib ku eedeysay Israa'iil in ay si ula kac ah ay u burburiyeen mashiinada nidaamyada sawir qaadayaasha diyaaradaha loo soo diray isla markaasna ay dib ugu celiyeen dalka Israa'iil si dib loogu hagaajiyo taasoo qaadatay muddo kale oo sanado ah. Turkiga ayaa markaasi ka shakiyay in Israa'iil ay qaybta sawir qaadayaasha adeegaha kale ee muhiimka ah diyaaradaha ay ka saartay ay u soo dirtay dalka Turkiga taasi oo shaki dhalisay inuusan Turkiga ku sii tiirsanaan karayn Israa'iil ama Mareykanka. Sanadkii 2010 Turkiga iyo Israa'iil waxa ay xidheen xiriirkoodii diblomaasiyadeed kadib weerarkii Israa'iil ay ku dishay 9 muwaadin oo Turkish ah oo isku dayay inay ka gudbaan marinka Gaza. Washington waxay sheegtay walaaca ay ka qabto in xulafada NATO ay dhibaato xagga amniga ah ku abuuri karto Israa'iil taasi oo sababta ay u diiday in ay siiso tiknoolajiyada dalka Turkiga waxayna diiday iibsiga droniska ee Turkiga. Sanadkii 2016 Turkiga waxa uu ka fogaaday ku tiirsanaanta waqtiga fog ee dalka Mareykanka isaga oo u leexday helitaanka uu ku fakarayo inuu naftiisa kula tartamo Washington iyo dalalka kale ee NATO wax soo saarka droniska oo noqotay mudnaanta koobaad tanina waxa ay fursad siisay Bayraktar 2015 ayuu sheegay in loo fasaxo soo saarka adeegga droniska iyada oo loo fasaxay inuu ciidanka dhex galo si uu uga la tashado tiknoolajiyada Turkiga uu rabo. wax yar kadib wiilkani ayaa ku guuleystay himilada kadib markii uu sameeyay diyaarad yar oo yaab leh oo droniska oo horumarsan taas oo la yiraahdo TB2 taas oo soo jeedatay indhaha militariga dalka Turkiga. Diyaaradan yar qiyaastii masaafo dhan ilaa iyo 4 kiiloomitir ayaa diyaaradani ku duuleysay waxayna bartilmaameedsanaysay ilaa 8 kiiloomitir oo ay ku jiraan adeegyada kantaalaha hagida Turkiga isla markaasna Bayraktar waxa uu galay dariiqyo ka duwan sidii hore waxa uu guursaday gabadha ugu yar madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan wixii markaa ka dambeeyay shirkadiisu waxay noqotay soo saaraha adeegsiga diyaaradaha droniska ee la doorbidayo dalka Turkiga. Diyaaradda ayaa xilliga kadib si tartiib wax looga bedelay ilaa awoodda maanta ay joogto in diyaaradda TB2 waxa ay lafdhabar u tahay hawlgallada hawada ee dalka Turkiga waxa ayna duuli kartaa masaafo dhan 24 saacadood kalena ay leedahay tiknoolajiyada korontada dhulka si ay ula xiriirto iyo sidoo kale xaddiga ilaa iyo 150 kiiloomitir waxayna qaadi kartay culayska 120 rodol. wiilka sodonka uu yahay Erdogan ee Bayraktar maanta wuxuu isu bedelay ninka ugu caansan uguna haliyeysan dalka Turkiga. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droniska ee Turkiga ayaa kuwa si joogta ugu dhow maanta cirka koonfurta bari ee dalka meel kasta lagu arkayo kuwaas oo maalin kasta la adeegsado diyaaradaha droniska Turkiga sida caadiga ahna waxaa la sheegay in ay ka mid yihiin diyaaradahaasi TB2 kuwa dib loo hormariyay sidaasi ayuuna ku soo baxay 3 sano gudahooda laga soo bilaabo 2017 2018 iyo 2019 inay Turkiga noqoto dalka saddexaad ee ugu awoodda badan diyaaradaha droniska ama ugu horumarsan sidoo kalena ugu isticmaalka badan dunida iyadoo wixii xilliga ka dambeeyay dalka Turkiga iyo waliba warshadaha kale ee difaaca dalka loo fasaxay inay soo saaraan diyaaradaha droniska oo lagu horumarinayo tiknoolajiyada uu mufakarkiisa leeyahay Bayraktar wiilka sodonka uu yahay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. Turkiga ayaa la sheegay inay tahay wadamada ugu horumarsan marka loo eego isticmaalka adeegga dhanka diyaaradaha droniska oo isticmaala dhamaanba marka loo fiiriyo qalab military oo gudaha dalka lagu farsameeyay halka ay ahaan lahayd in ay dalal dibadda ay kala yimaadaan. inta badan dalalka ka soo iibsada hubka reer galbeedka ayaa walwal ku qaba kalsoonida lagu qabi karo awoodda hubka ay soo iibsadaan kuwaas oo lacag ku bixinaya kalsooni hub aysan ku qabi karayn lagana yaabo in tiknoolajiyada hubkaasi lagu farsameeyay aysan ahayn kuwa loo dhameystiri doono marka la siin doono dalal badan oo dunida ah oo dhinac kala duwan cadow ka wadaaga. Turkiga ayaa sidoo kale 2 sano gudahood kor u qaaday inuu ka mid noqdo awoodaha hubka iibiya dalalka dunida iyadoo uu ka iibiyay dalal badan oo dunida ah kuwaas oo doonayo inuu kala tartamo dalalka kale ee reer galbeedka.